dunida islaamku waxay u baahan tahay hogaamiye la mid ah geesiga muslimiinta madaxweynaha la jecel yahay ee dalka Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan waa madaxweynaha kaliya ee u babacdhigay hagardaamooyinka reer galbeedka isla markaana ka hor yimid silsilada shirqool ah oo dalkiisa iyo wadamo kale oo muslimiin ah ay la damacsanaayeen kuwa neceb horumarka dunida islaamka. madaxweynaha dalka Turkiga oo ah shakhsi fikir dheer u leh hogaaminta iyo hagardaamooyinka shisheeyaha ayaa wadankiisa gaarsiiyay horumar dhinacyo badan leh sida dhaqaalaha, militariga, caafimaadka, waxbarashada iyo mideynta dadka dalkiisa. xilligii uu ra'iisul wasaaraha ahaa iyo hadda oo madaxweynaha yahay intaba waxaa jiray wadamo isku dayay in shacabka Turkiga ay ka hor keenaan hogaamiyahooda Recep Tayyip Erdogan hase ahaatee waxa uu isticmaalay sida dad badan ay aaminsan yihiin siyaasado ay ka muuqatay deganaan iyo khibrad waxaana shacabka Turkiga oo intooda badan jecel Recep Tayyip Erdogan ay iska diideen qorshayaasha laga soo maleegay dibadda. waxyaabaha lagu xasuusto shacabka Turkiga waxaa ka mid ah in afgambigii dhicisoobay oo la rabay 2016 in lagu afgambiyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay ka hortageen shacabka isla markaana ay taagiyada isku dhigeen kaasi oo qoosiyay wadamo badan oo caalamka ka mid ah oo jeclaa in Turkiga uu noqdo wadan iyaga ay siday rabaan ka yeelaan. halkan kuma soo koobi karo guulaha Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga uu ka gaaray dhinacyo badan hase ahaatee waa madaxweynaha difaaca dunida islaamka waana madaxweynaha kaliya ee u hadla dadka dagaalada gardarrada iyo weerarada joogtada ah lagu qaado maalin walba. Suuriya oo sanooyin badan dagaal ka socdeen wuxuu u furay qaxootiga wadankaasi ka soo cararaya xuduudda dalkiisa waxaana uu ku soo dhaweeyay dalka Turkiga iyadoo waliba dalal badan oo reer galbeed ah ay diideen dadka Suuriya ka soo cararaya. dadka reer Falastiin oo Israa'iil ay go'doomisay ayuu mucaawino u diray iyadoo maraakiib looga qaaday dalka Turkiga cuntooyin iyo adeegyo kale la gaarsiiyay dhulka reer Falastiin waxaana lagu xasuustaa in fadhiga uu kaga kacay Shimon Peres oo ahaa mar madaxweynaha Israa'iil mar uu si qaldan uga hadlay arrimaha reer Falastiin. Israel left Gaza completely, no occupation. You know what it means? Every day almost there are many details that you have to know. Not us. And then mothers and children I want to understand why did they fight rockets against us? What for? There was not any siege against Gaza. With apologies to Prime Minister Erdogan. 1 minute. 1 minute. Well, you know. 1 minute. 1 minute. Okay. 1 minute. I'm going to hold you to the 1 minute, please. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Aykut devlet vasfını kazandığını belirtiyor. I want to ask you to defer to our host. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunu da böyle bilirsiniz. Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Olmaz. Let me turn this over to our host. Prime Minister, Ladies, Professor Schwab. thank you very much. If you stay for one. sidoo kale madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan bulshada Soomaaliyeed ayuu garab istaagay xilli ay jireen xaalado adag oo isugu jiray abaaro, gaajo, cudurro waxaana uu laba mar tagay Soomaaliya isagoo dhinacyo badan ka caawiyay dawladda iyo dadka Soomaaliyeed. Recep Tayyip Erdogan hadda waa madaxweynaha kaliya ee ka hadlaya xasuuqa, barakacinta iyo tacadiga xun ee lagu hayo bulshada muslimiinta Rohingya ee dalka Burma waana hogaamiyaha kaliya ee arrintaasi ka xanuunsaday waa hogaamiyaha kaliya ee ka danqaday xadgudubka ka dhanka ah xuquuqda aadamaha ee lagu hayo bulshadaasi muslimiinta ah.
marka aad eegto hadalhaynta madaxweynaha turkiga ee dunida islaamka, marka aad eegto baraha bulshada, marka aad akhriso doodaha, markaad u fiirsato tallaabooyinka isxiga ee madaxweynaha turkiga uu qaadayo, waxaa lagu tilmaamay madaxweynaha turkiga amaba la aaminsan yahay inuu yahay geesiga islaamka, madaxweynaha naxariista badan iyo madaxweyne ay u baahan tahay guud ahaan dunida, gaar ahaanna dunida islaamka. Çok ciddi baskı altında. Demokrasi maskesi altında yürütülen bu soykırıma göz yumanların hepsi de yapılan katliama ortaktır. Bu insanlara ormanda yolunu şaşırmış bir ceylan, bahçeye düşmüş kanadı kırık bir kuş, denizde zıpkın yemiş bir balık kadar değer vermeyen, ilgi göstermeyen dünya medyası da yaşanan